xuseen jaabac oo markaa boggiisa youtube-ka soo dhigay inuu hayo gabadh soomaaliyeed oo markaa ku jirta faylasha Epstein. bal horta intaan idin sheegin inay run iyo been tahay, bal horta aan xogta xuseen dhegeysano insha allah. gabadha keliya ee Soomaali ah ayaan ogaaday inay ku jirto faylka Epstein file, isla markaasna walaasheed oo yar oo ilaa 18 sano jirta ka iibsatay Jeffrey Epstein. sidaa daraadeed waxaynu muuqaalkan aynu ku fiirin doonaa gabadhaas uu qofkay tahay, maxaa dhex maray ayada iyo Jeffrey Epstein, iyo xogo kale oo aan soo aruuriyey oo gabadha markaa la xiriira ayaynu muuqaalkan bal ku dul istaagi doonaa. soo dhawaada meel walbo joogtaan iyo solba muuqaal. Okay, gabadhan wuxuu leeyahay markaa waa gabadh Soomaaliyeed oo markaa ku jirta faylasha Epstein iyadoo markaa walaasheed ka gaday. meelo kala duwan buu markaa dabcan kaga hadlayaa. Fiidiyowgu dheeraya 16 daqiiqo iyo 11 sekin Xuseen Jaamac TV uu soo geliyay. gabadha markaa Soomaaliyeed baa sida uu Xuseen sheegay mise gabadhu maaha. dabcan isagu xogta wuxuu ka soo xigtay page-kan Epstein Library oo markaa laanta cadaaladda Mareykanka page-kooda ay soo dhigeen. Saadiya Ibrahim haddaad ku qorto markaa uu ku soo baxaya. Okay, laakiin se xogta maxaa ka jira markaa gabadhu sima Soomaaliyeed ba haddaad gabadha markaa uu inoo sheegay Xuseen Jaamac aad daba gashaan isagu sida uu yiri waa Soomaaliyeed, laakiin se bal anigu ra'yiga taa ka duwan oo markaa cadeynay gabadhu inay Soomaaliyeed tahay bayno daarad doonaa, laakiin aan dhameeyo horta bal xogta Xuseen Jaamac uu bixinayo. laba file oo kala duwan ayaa ku jira. labadan file ka mid ah waa file ay labadan qof ay chat gareynayaan. waa file ay laba qof markaasi ay chat gareynayaan, waliba text message ay isku dirdirayaan. haddii aynu furno filekan markii aad fiirisaan waxaad arkaysaan laba qof ayaa wada hadlaya. midkan koobaad waynu arki karnaa waa Saadiyo Ibrahim gabar la yiraahdo. telefoonkeeda waa la qariyay. qofka kale magaciisana waa la qariyay, telefoonkiisana waa la qariyay. markaysaan qaybtaas marka waa qaybta kore. taariikhda uu dhacayo chattingkaasna waynu ka arkaynaa meesha inay sanadii labada file buu ka warramaya. run labada file uu ku jiraan meesha. xogteenu inagu socono maaha labada file. xogteenu socono waxa weeye gabadhu Soomaaliyeed ma tahay mise maaha, waxay doontaba iyadoo ha samaysay. sidii Xuseen Jaamac sheegay anigu soo yaryareynaya gabadhu wuxuu yiri waa gabadh Soomaaliyeed isagoo markaa u soo xigtay xogtan oo markaa Facebook ka raadiyay. soo baxayaba ciwaankii lidinka ahaa oo ay lahaydba ki Jeffrey Epstein uu ka follow galay naftirkiisa soo helna. marka sawirkeeda saaran macluumaadkii aynu raadinaynay oo Faransiiska ahaa oo sheegay halka ay ka shaqeyso iyo sectorka ay ka shaqeyso iyo meesha ay degan tahay. xogahan aan faylka ka soo saaray. Saadiya waa gabadhan aad arkaysaan, waa gabar xataa ka baxday hayndaabka Soomaalinimada. waa gabar Faransiis caadi ah noqot. aan ku soo celiyo gabadha Soomaaliyeed buu leeyahay. dabcan sawirkan tattoo ayaa garabka midig kaga yaala, laakiin sawirka kale xaggan bidixda ayuu kaga yaala. gadaal waxaan ku ogaan doonaa markaa in kaamarada la bedbedelay, laakiin sida aynu ku arki doono inuu bidixda kaga yaalo, inkastoo sawirada qaybna ay midigta la soo dhigayo, laakiin taas waa dhimal waa la bedeli karaa. bal ha dhamaystiro Xuseen insha Allah. aad arkaysaan waa gabar xataa ka baxday hayndaabka Soomaalinimada. Okay, inta uma dhaafino dabcan Xuseen uu ka soo hadlay gabadha iyo waxyaabaha feelalka kaga jira uu ku tilmaamay markaa gabadha Soomaaliyeed inay tahay. Okay, bal maxaa ka jira markaa arrinka inta uu soo qaatay oo identity-keeda uu markaa meesha Faransiiska ka soo xigtay mooyaane. haddaad halkan tagto magasiinka waxaad ku arkaysaa magaceeda in magasiinkanu ay isla gabadha tahay. ka raali lahaada muuqaalka yara foosh xun. magaceeduna uu ku qoran yahay Saadiya Ibrahim oo markaa magasiinkan iyada lagu soo saaray. sidoo kale shirkadana ay leedahay, shirkadaha makeup iyo qurxinta waxaa sameeyay waa kan markan waxa weeye isla magasiinkan dabcan soo baxay 8 May 2023. okay, taas waa mid. sidoo kale waxaad ku arkaysaa haddaad TikTok accountigeeda aad gasho waxaad ku arkaysaa markaa accountigeeda click haddaad siiso waxaad arkaysaa markaa fiidiyoyo kala duwan uu kanu ka mid yahay. haddaad soo dhaweyso tattoo-gii halkaasaad ka arkaysaa. okay, maarata tattoo-gii isla falaadhaha lahaa garabka midig. sidoo kale ciwaanka TikTok-geeda u saaran Saadiya Ibrahim. mid kaloo accounti kale oo markaasna Saadiyana accountigan iyo mid kale way isdaba yaalaan oo markaasna waad ka soo arkaysaa.
again fiidiyo fara badan baad ka soo arkaysaa oo markaa isla gabadhaasa iyadoo taatuugii wadata dabcan ka raalaada fiidiyada qaqaawan waa kan markaa taatuugiyo garabka bidix kaga yaala markii hore midig baan tusay isagoo bidixda kaga yaala markan isla iyadii waa kan isla iyadii markana waa kan markana waxa weeye isagiyo markaa bidixda taatuuga kaga yaala oo markaan kasoo jaray oo isla gabadhii idan gabadhan waxa weeye markaan anigu qiyaasteeda eegay inay u dhalatay waddanka Ivory Coast oo wuxuu ka mid yahay wadamada ku yaala galbeedka Afrika iyadoo ehleedeeda la kulmayso oo markaa Ivory Coast hidiya dhaqankoodii xidhanna waad ka soo helaysaa dabcan haddaad waqti badan ku kulmayso marka way iska caddahay aadna way u sahlan tahay in gabadhan markaa accountigeeda aad soo hesho dabcan again isla xogtii oo markaa beauty shirkadda Clasha Beauty oo markaa magasiinkana ay kala mid tahay oo markaa Clasha Beauty arta Saadiya Ibrahim عندنا شركة دي وكا كلاشا بيوتي هذا تيك توك كده كده نود كيلسا كلاشا أما كلاشا بيوتي أو مركا أكونتي كده أو مركا أي فولورز ويين تطواتهم كون سيدو كلا أكونتيو الله بقى أكونتيو يرير نويلا ذا هالكن أو مركا حاجة دير على كيلسا مركا رنتي أد بيس هالنتا إن مركا أي عدا هي قبض إننا قبض الصوماليات أين أهين ومركا حسين سور كده سوقاتي حسين أوتاج جارين كرتان ده بالآدم قفك وحوا الدوف كرا لكيسي إن مركا gabadh kale oo gabadh kale walaasheeda gadaysa in dumarka Soomaaliyeed lagu soo riixo anu waxaan leeyahay foostadan yaa lagu soo degdegin dadka Soomaaliyeed ma dad kolba intaan ogahay iyagu dhalankooda gadi lahaa amba cid kale ka iibin lahaa waad maasantiin